dhexe saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alfleyda iyo dableyda oo dhammaantood ka kala tirsan fadhiyada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo diyaar u ah xoojinta howlaha nabadgelyada ee caasimadda iyadoo guud ahaan ciidanka booliisku ay heegan u yihiin nabadgelyada qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland ay ugu idman yihiin ay mas'uulka uga yihiin kuma koobna ciidanka caasimadda inta noo qura waxa weeye hawlihii kale barbahaya waxa weeye markaas saacad wasiir waxaanu diyaar u nahay inaanu xoojino amniga oo cid kasta oo isku dayda inay nabadgelyada carqaladayso talaabo sharciga waafaqsan iyadoo sharciga lagu xadgudbayn ay ciidanka booliisku qabtaan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa kooxaha dhalinyarada ah ee had iyo jeer rabshadaha sameeya ee kooxaha isu dila oo in dhaweyd hadalkoodu yaraaday markii in badan laga xidhay waxaana laga wacyigeliyey in ciidanka booliisku ay ku amran yihiin inay qabtaan cid kasta oo nabadgelyada ku dhimasa hadday dhalinyarada tahay iyo cid kaleba saacad wasiir waxaan ku soo dhaweynaa si aad kelmadii rigelin u tiraado ciidanka oo dhammaantood diyaar u ah inay xoojiyaan amniga caasimadda iyagoo guud ahaan gobollada dalkana ay kaga jiraan heegan buuxa oo diyaar u yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa inaad kelmad tiraado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim taliyaha ciidanka booliiska taliya xigeenka iyo saraakiisha iyo dableyda dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waxaynu kontaroolkan aynu uga jeednaan isugu nimid inaynu isku baraarujinno howlaha culus ee u haysaan qaranka Soomaaliland oo runtii hore u socda oo maalin walba gelaya marxalad cusub oo u socota dhinaca wanaagga iyo horumarka waxaan marka hore idinku hambaliyeynayaa intii qarankanu jiray ama booliiska Soomaaliland la aasaasay inuu hantay deganaanshaha iyo xasiloonida qaranka Soomaaliland oo runtii aad tihiin ragga qarankanu ku hurdo marka laga eego dhinaca gudaha oo aan idinku ammaanaya sidaa uga soo baxdeen kaalimihiinnii waqtiyadii adkaa ee faraha badnaa aysa soo daba socday guushii way dhowdahay waxa inooga hadhayna waa wax yar waxaynu u baahannahay intaynu guushaa shacabkeenna gaadhsiinayno haddii aan la yidhaahdo sidaa ugu dhabar adeegi jirteen dhibaatada dembiilayaasha sidaa uga adkaan jirteen qaswadayaasha sidaa u fadhiisin jirteen sidaa qaranka muxuu ahaye nabadgelyadiisa u ilaalin jirteen inaad maantana u ilaalisaan maadaama aynu soo ururayno dawladnimadii iyo qarannimadii iyo ictiraafkii qaranka caalamku maanta waxaynu maraynaa meel qiimo leh oo layna majeerto oo dunidu ina soo egayso waxaynu ka soo tagnay maalmo aan layna aqoon oo aynu dib u dhalannay 60kii baynu dhalannay laakiin waxaynu gallay calool jaan baynu dib u gallay dib u curashadeennii ama dib u soo noolaanshadeennii ama dib u dhalashadeennii waxaynu soo marray waqti caalamku isweydiiyo oo war ilmaha yaree ka dhashay Soomaaliya muxuu ahaa abtirsiimo ma leeyahay mise waa bila abtirsiimo aynu lahayn 60kii wixii ka horreeyey baynu la dhalannay caalamku maanta wuxuu marayaa in laga soo tegay waqtigii la iskaga weydiinayey oo la leeyahay waxay istaahilaan dawladnimo iyo ictiraaf inay caalamka mid noqdaan maxay ku timid nidaamka intaa leeg iyo wanaagga iyo qiimaha caalamku inoo hayaa maxay ku timid waxay ku timid kow waa nabadgelyada ah haysaan oo ilaahay uga mahadnaqayno sida uu inoogu fududeeyey ama uu inoogu ilhaamiyey ee ragga ka shaqeeyana intiinani hor taagan iyo inta shaqooyinka gobollada Soomaaliland ku maqan ayaa leh mahaddeeda ilaahay baa mahad leh idinkaa leh mahaddeeda
waxaa kaloo mahad leh shacabka Somaliland ee u qaatay ama u yaqaana booliisku inuu yahay walaalkood inuu yahay gidaarka ay kaga tiirsan karaan ama ay kaga gaban karaan xumaanta iyo dhibaatada iyo deganaanshiyo la'aanta waxaan uga mahadnaqayaa shacabka Somaliland siday noo caawiyaan siday idin garab taagan yihiin siday idin aqbalaan siday idin aaminsan yihiin idinkana waxaa la idinka sugayaa shacabka daryeelkiisa iyo soo dhowayntiisa idinkoo ka ilaalinaya cid kasta oo dibindaabiya u geysanaysa noloshooda iyo deganaanshooda waxaan idinku ammaanayaa sidaa u tihiin naftood horayaal aan ka gaban wixii shacabkan dibindaabiyeynaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa shaqo wanaagsan iyo guul baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu